Nabadda wadayaal meel walbaad joogtaan. Halkani waa Page-ka Fagare Production. Kusoo dhawaada maqaal dheer oo uu qoray Ambassador Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, oo xambaarsan murugo iyo qiso cajiib runtii. Intaynan u gudagelin qisadan cajiibka ah ee dhacdada lama ilaawaanka reebtay, waxaan rabaa daawade inaad Page-ka follow tiraahdid, sidoo kale sii share garee muuqaalka, like-na saar si ay saaxiibo badan xogo iyo macluumaad dheeriya halkan uga faa'iidaan. Waa ku mahadcelinaynaa. Waa habeenkii la dilay saaxiibkii wasiir Cabbaas Siraaji iyo hadal habeenkii dhex maray hogaamiyaashii Soomaaliya iyo Itoobiya oo labaduba markaa kadib laba xilli oo kala duwan uu midba mar waayay xilalkoodii. Waa horaantii bishii May 2017. Waa Addis Ababa, caasimadda Itoobiya. Waxaan fadhiyaa casho sharaf si qurxoon loo soo agaasimay oo uu ra'iisul wasaarihii Itoobiya Haile Mariam uu ku casuumay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisii oo isugu jira wasiiro aan ka mid ahaa xildhibaano iyo mas'uuliyiin sarsare. Miisas uu mid kasta qaab goob ah u samaysan yahay oo teel u yaala ayaa mid kasta waxa fadhiya mas'uuliyiin isku dhaf ah oo inta badan isku dhigma ugu yaraan darajo ahaan oo Soomaaliya Itoobiyana. Miiska ugu mudan oo ka durugsan inta kale waxaa fadhiya madaxweyne Farmaajo iyo marwadiisa oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ay marwadiisu weheliso isagana. Wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya iyo aniga oo dhigiisa ahaa waa inta aanu na soo gaarin ama nagu soo biirin madaxweynihii ismaamulka Soomaalida Cabdi Cumar. Jawi qurxoon oo kaftan taxadar leh iyo sheekooyin noo socday ayaa mar qura hakad galay kadib markii miisaskii naga fogaa mid ka mida uu ka soo kacay howlwadeen ka mid ah maamuuska madaxweynaha. Telefoon khadka ku jira oo uu gacanta ku siday ayuu u dhiibay madaxweyne Farmaajo. Waxaa isaguna soo kacay Sambaloolshe oo markaa ahaa taliyaha nabad sugidda, wuxuuna dhegta iigu sheegay in la dilay wasiir Cabbaas Siraaji. Waxaan weydiiyey cidda dishay. Wuxuu ii sheegay in ciidanka dowladda gacantooda uu ku baxay wasiirku. Markii uu Sambaloolshe iga tegay kadib ayuu madaxweynuhu dhammaystay telefoonkii uu ku hadlayay isagoo aamusan ayuu isoo eegay. Waxaan weydiiyey su'aal, madaxweyne wasiirka la dilay miyaa laguu sheegay? Markii uu ii jawaabay ayaan u jeediyey in uu mas'uulka la fadhiyo la wadaago maadaama uu warku bannaanka u soo bixi doono. Markii uu mar labaad iga hubsaday inay sidaasi ila habboon tahay ayuu u sheegay Haile Mariam. Aniguna waxaan u sheegay wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya oo i garab fadhiyay. Madaxweynaha iyo aniguba waxaan helnay isku jawaab. Waan ognahay ayay ahayd jawaabtii madaxweynaha dhagta loogu dhibciyey oo la mid ah tii aniga la isiiyey. Laba ruux ayaa soo kacay si madaxweynaha iyo aniga naloo wargeliyo in wasiirkeennii la dilay. Cid soo kacday oo Itoobiyana ma jirin. Ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkuna horteen ayay ogaayeen dilka wasiirka Soomaaliya ka tirsan. Safarkayagii waan soo gaabinay. Waagu markii uu baryayna waxaan u soo duulnay Muqdisho, caasimadda dalka. Waxaana ii suurto gashay inaan ka qayb galo shirkii golaha wasiirada ee dilka wasiir Siraaji looga warbixinayay loogana arrinsanayay. Dilka habeenka ka dhacay Muqdisho iyo hadaladii miiska sare ee Addis Ababa la isku weydaarsaday ee aan kula wadaagay akhristow ka fikir oo u qaado shaqo guri ayuu yiri Yuusuf Garaad oo qoraalkan dheer la wadaagay dadka. Ugu dambeyn wuxuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa, waxa kuu soo baxa ee ay kula noqotana fadlan ila wadaag. Haddaba daawade adiga laftirkaaga haddana daawanaya sidee u aragtaa in wasiir lagu dilay gudaha Soomaaliya? Dowladda Itoobiya madaxdeeda iyo madaxda Soomaalida oo Addis Ababa ku shiraya inay Soomaalidii madaxdii ugu sarreysay oo aan ogaan Itoobiya tiraahda waan ognahay maxay ka dhigan tahay? Fadlan fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag. Waana qormo dheer oo uu qoray Yuusuf Garaad Cumar. Mahadsanid.